السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو وعنا وناكسن داوديال meel walba aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada warka TV-ga SBC oo kaga imanaya xarunta TV uu ku leeyahay magaalada Garowe waxaana anigu Ciise Maxamuud Ciise qodobada wararka aan idin haynana waxa kamid ah shirkii uu ilaamiyay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya oo markii saddexaad baaqday kadib markii ay xaadiri waayeen maamulada qaar golaha wasiirada Somaliland ayaa go'aamiyay in dib loo hawlgeliyo guddiga abaaraha Somaliland wasaaradda caafimaadka Somaliland oo baaq la xiriira xanuunka COVID-19 u dirtay shacabka gobolka Awdal xildhibaano ka tirsan Somaliland oo sheegay in xanuunka COVID-19 ay 9 ruux u geeriyoodeen degmooyinka Ceelofweyn iyo Widwid qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan u diyaar garooba haatanna warkii oo fidsan shirkii uu ilaamiyay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya oo looga hadli lahaa arrimaha doorashooyinka ee cakiran ayaa markii saddexaad baaqday kadib markii ay soo xaadiri waayeen maamulada qaybtood magaalada Muqdisho oo loogu ballansanaa in lagu qabto shirka wariye Cabdiqani Boos ayaa ka waramaya waa markii saddexaad oo fashilmo shir uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo inay isugu yimaadaan dawladda federaalka ee Soomaaliya dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir kaas oo ka dhici lahaa magaalada Muqdisho shirkan oo ku mudeysnaa maanta oo Khamiisa taariikhduna ay tahay 4 bisha Maajo ayaa waxa ka baaqsaday dawlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo dalbaday in waqti la siiyo shirka ra'iisul wasaaraha iyo midowga musharaxiinta sidoo kale soo jeediyay in shirka lagu qabto goob ammaan ah oo kamid ah garoonka diyaaradaha sidoo kale waxa safar dalka dibadiisa ugu maqan madaxweynayaasha dawlad goboleedyada koonfur galbeed iyo sidoo kale galmudug waa markii saddexaad oo madaxweyne Farmaajo shir uu cilaamiyo uu baaqdo kadib wixii ka dambeeyay markii uu muddaxileedkiisu dhamaaday 8 February madaxweyne Farmaajo ayaa hore u cilaamiyay 15 bishii hore shir ka dhici doona Garowe kadib markii uu fashilmay shirkii Dhuusamareeb Puntland ayaana ku gacan saartay in shirkaas uu ka dhaco Garowe taa beddelkeedana waxa ay dalbatay inuu ka dhaco magaalada Muqdisho sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa soo saaray war-saxaafadeed oo shir isugu yeeray dawlad goboleedyada 18 ilaa 19 bishii Febraayo kaas oo ka dhici lahaa magaalada Muqdisho inkastoo xilligaasi Muqdisho ay ka jireen xiisado siyaasadeed iyo banaanbaxyo ay cilaamiyeen mucaaradku shirkana waxa uu noqonayaa kii saddexaad oo baaqda kadib dalabyo ka yimid maamulada Puntland iyo Jubbaland kaas oo ay ku doodayaan in shirka lagu qabto goob ammaan ah oo ka baxsan madaxtooyada ee Villa Soomaaliya Cabdiqani Boos SBC golaha wasiirada Somaliland ayaa go'aamiyay in dib loo hawlgeliyo guddiga hawlwadeennada u ahaa gurmashada abaaraha ee Somaliland sida uu ku waramayo wariye Warsame Laacdheere fadhigii 17aad ee golaha wasiirada Somaliland oo maanta oo Khamiista ka qabsoomay qasriga madaxtooyada Somaliland waxa gudoominaya madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxaana ku wehelinaya madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Shire Saylici waxaana kulankani oo maanta ka qabsoomay qasriga madaxtooyada Somaliland laga dooday qodobo muhiim ah oo ka mid ahaayeen arrimaha doorashooyinka abaara soo food saaray meelo kamid ah dalka iyo arrimo kale ugu horeynba golaha wasiiradu fadhigoodii maanta waxay ku lafagureen xoojinta amniga waqtiga doorashooyinka isbarkan ee golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland ka qorsheysan 31 bisha May sanadkan aynu ku guda jirno ee 2021 waxa kale oo golahu isla qaatay in sida shuruucda doorashooyinku dhigayaan warbaahinta dawladda oo ahaanti qaran ay dhex u noqoto xisbiyada qaranka lana sii dardegeliyo wada shaqayntii hore uga dhaxan jirtay xisbiyada qaranka iyo warbaahinta dawladdu maamusho waxa kale oo golahu go'aamiyay in guddida abaaraha dib loo hawlgeliyo xubno xaqiiqo raadisana loo diro goobaha abaaruhu ka jiraan ee u baahan biyo dhaamis iyo raashin qaybin isla markaana ay soo saarto baaqayla dhaana si gurmad loogu bilaabo muwaadiniinta tabaalaysan ee abaaruhu saameeyeen goluhu isagoo ka duulaya baahiyaha soo noqnoqda ee la xidhiidha biyo dhaamis biyo yaraanta waqtiyada qaar waxay isla meel dhigeen in xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland sanadaha soo socda xooga saarto qodista biyo xidheedna waaweyn si looga faa'iideysto waqtiyada abaaraha iyo biyo yaraanta ugu dambeyntii goluhu wuxuu isku raacay in si buuxda loo soo celiyo wacyigelintii ka hortagida caabuqa COVID-19 oo waqtigan dunida ku soo laba kacleeyay lagama maarmaan ay tahay in bulshada laga baraarujiyo khatarta uu leeyahay
xanuunkani si looga diyaargaroobo. War-saxaafadeedkan ayaa ka soo baxay xarunta warbaahinta qasriga madaxtooyada Jamhuuriyadda Somalilan. Warsame Siciid Cali, wararka warbaahinta SBC, magaalada Hargeysa. wasaaradda caafimaadka Somaliland ayaa baaq la xiriira xanuunka COVID-19 u dirtay dadweynaha ku dhaqan gobolka Awdal ee Somaliland. wariye Axmed Diiriye Ciltiri ayaa faahfaahinaya. kulankan ay maanta iskugu yimaadeen dhammaan bahda kala duwan ee caafimaadka ee gobolka Awdal ayaa waxay fariimo wacyigelin ugu direen bulshada inay ka digtoonaadaan soo laba kaclaynta xanuunka COVID-19 oo guud ahaan caalamka iyo guud ahaan geeyiga Soomaalida si weyn uga soo laba kacleeyay. waxaana ay baaq u direen bulshada iyaga oo sheegay in dhammaanba loo hoggaansamo talooyinka iyo awaamirta ka soo baxaya guud ahaan wasaaradda caafimaadka ee Somaliland. inaanu maanta bulshada ka wacyigelino xanuunkii safmarka ahaa ee COVID-19 oo mar labaad kusoo laba kacleeyay dunida oo dhan. marka waxaanu u sheegaynay bulshada guud ahaan Somaliland iyo gaar ahaan bulshada degta gobolka Awdal in uu xanuunkii jiro, bulshadana ku dhex jiro. waxa ugu muhiimsan ee loo baahan yahay inay tahay taxadir. xanuunkani sidaad ogsoontihiin daawadiisa kaliya uu leeyahay waxa weeye waa ka hortag oo male daawo inta ugu badan, laakiin wuxuu leeyahay ka hortagaasina waxa muhiim ah inay bulshadu dhammaan ka wada qayb qaadato. qofku isagu ka bilaabo naftiisa, dabadeedna uu ku xijisiiyo bulshada inta kale ku hareeraysan ee familigiisa, bulshadiisa iyo qoyskiisa iyo dhammaan bulshada reer Somaliland. waxaan markaa ummadda u sheegaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba in la yareeyo isku imaatinka faraha badan leh oo meelaha buuqa ah oo qofku had iyo jeer uu taxadir ka sameeyo, isagoo hadday suurtagal tahay xidhanaya face maski, sidii caadiga ahaydna ku dadaalaya faraxalka, kuna dadaalaya inuu dadka u jirsado tallaabooyin aad u iskugu dhow. muhiimna ay tahay mar walba inuu taxadir sameeyo. marka maanta waxaan halkan bulshada uga gudbinaynaa inay fariimihii caafimaadka ee maadartay laga hortagay xanuunkan inay soo celiyaan oo kala fogaanshihii face maski, waxyaabihii gacmaha lagu dhaqay iyo taxadirkii inay limin laabaan oo ay ka hortagaan xanuunkaasi. waayo saynu ognahay xanuunkaasi ma laha dawo toos ah oo lagu daweeyo. dhibtiisana waynu garanaynaa oo waxa weeyaan ha ugu darnaado dadka waaweyn oo aad u dhibaataynayo. maadaama dadkii yaryaraana ay gudbinayaan oo dadkii waaweynaa ay u gudbinayaan, waxay noqonaysaa in ka hortagii la limin laabo ka gobol ahaan, iyadoo aan ognahay kiiskii ugu dambeeyay Somaliland inuu soo kordhayo kolba numberku. ka gobol ahaan iyadoo alxamdulillah aynu ku jirno oo dhibaato fara badan oo runtii soo gaadhay aan oran karnaa way jirtaa, laakiin haddana dhibaan marka hore lasii mahadin au keenay COVID-19. maanta waxaan bulshada la wadaagaynaa wacyigelin mugle oo ku saabsan xanuunkii safmarka ahaa ee COVID-19. dhammaan bulshadu sida ay ka warqabto waxaa jira in soo laba kaclayn caalamka guud ahaan, gaar ahaan Somaliland iyo gobolkeena Awdalba. waxaa noo muhiim noqotay oo runtii aan ognahay in xanuunkani una daaweyn la og yahay ayna jirin, laakiin ka hortagiis uu yahay waxa ugu muhiimsan ee bulshada inaan la wadaagno ay tahay. waxaan keenay inaan maanta wacyigelintan aan qabanno waxa kow ka ah soo laba kaclaynta xanuunkaasi. gobolka Awdal waa gobolada sida baaxadda leh xiriirka ula leh gobollo badan oo uu aad iyo aad u asiibay xanuunkani, hadday tahay Djibouti, hadday tahay Ethiopia iyo hadday gobollada kale ee ay ka midka yihiin Yemen ay tahay. intaa xadba gobolkani uu la wadaaga waa xuduudaha ugu waaweyn ayuu ka mid yahay ama kow ka yahan oran karnaa gobolka Awdal. marka bulshada iyada anagoo jecel, anagoo u dadaalayna, anagoo gudanayna waajibaadkii qaran ahaaneed, gobol ahaaneed iyo degmo ahaaneedba wasaaradda horumarinta caafimaadka oo uu ku hogaaminayo wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka, wasiir ku-xigeenka iyo agaasimuhuba. waxa maanta aanu la wadaagaynaa maadaama xanuunkii uu soo laba kacleeyay in ka hortagii la xoojiyo oo ay kow ka tahay in bulshadu
ay ka taxadirto isku ururkii meelaha lagu urursan yahay ay taxadir mugle ay ka lahaato. axmed diriicil tire wararka warbaahinta SBC boorama. waalidiinta ubadkooda ay dhigtaan dugsiga lagu mudaharaaday ee Nuuridiin ayaa ka hadlay banaanbixii ay ardaydu sameeyeen iyo burburkii soo gaaray iskuulka. wariye warsaman laacdheere ayaa faahfaahintan Hargeysa ka soo diray. qaar ka mid ah waalidiinta ubadkooda dhigtaan dugsigan sare ee Nuuridiin ayaa ayaan darayo wax laga xumaado ku tilmaamay burbur maalnimadii shalay ahayd loo geystay dugsigani Nuuridiin. ku fadhinaa waalidiintii iskuulka Nuuridiin Secondary School qaybtii inamada oo shalay dib halkan ka dhacday oo shoobara ahayd oo ardayda uun ka timid in koobanibaha soo abaabushay ay sameeyeen runtii dhaawac weyn baa iskuulka soo gaadhay qalab fara badan baa burburay waa la qiimeyn doonaa kulay oo hawlusha guddi baa ku shaqale oo gacanta ku haysa waxa uu quraatan halkan dareenkayga inaanu ka muujino inaanu ka xunahay dhacdada shalay iskuulka ku dhacday oo amid bulshadii ku dhacday ubadkii aanu dhalay in waalidka u ahayn oo waxbarashadii runtii ay ka kala dhantaalmayso falalka noocaas oo kale anagu afkii waalidiinta ku hadlayno waa cambaaraynaynaa oo waxay fawdo ay sababi karaan hadii waxa noocan oo kale uu nagu sii socdo xukuumadda waxaanu ugu baaqaynaa gaar ahaan wasaaradda waxbarashada si iskuulku aanu muddo u sii xidhnaan oo ardaydii aanay waxbarashadii uga kala dhicin in gacan buuxda laga geysto iskuulka sidii uu dib ugu furmi lahaa dee kolley muddo u xidhnaan inta dayactirku uu socdee laakiin inay muddadaasi noqoto muddo aad u kooban way arday fonfoorraabaa ku jirta oo imtixaankii GC-gaas sugayo kuwa kale waxbarashadooda daba socotaa taa xukuumadda wasaaradda waxbarashada inay gacan buuxda ka geysato iskuulku maadaama private sector-kii uu ka tirsan yahay iyadoo uuna xukunto in sidii public gaba ay ugu gurman lahayd wasaaradda waxbarashadu ay ugu gurmato taa waa ku guubaabinaynaa. waxaanu halkan ku fadhinaa waalidiintii iskuulka waxaanu aad u cambaaraynaynaa falkaa ka dhacay iskuulka oo ah fal aad iyo aad u foolxun wax loo adkaysan karayana aanu ahayn. labaan u kala qaadayaa mid waxaan waaninayaa caruurta iyo ardaydayada waxaan ku waaninayaa dareen waalid waxaan ku waaninayaa dareen ka sii xeel dheer oo dareen hooyanimo ku waaninayaa. waxaan leeyahay hooyo xiisad kaliya oo idinka maqnaataa idinkama go'do iskuulkiina ha iskaga ciyaarina inta qaska iyo qalanqaasaha wada maamulka iskuulka farta ka saara si aanu iskuulkiinu idinka dhaawacmin waayo waxa weeyaan kuraastan waxa lagu soo iibiyay mushahar fiigi yaraa la idinka qaadayay si kamaraha iyo waxa laaliya waxa burburiseen intii yarada fiiga hayda la idinka qaadayay baa lagu soo iibiyay marka heeriyadood cun ha noqonina. aad iyo aad baan uga nahay halkan meesha ka dhacay bini'aadmiga caalamka dareenkooda way muujiyaan laakiin waxa meesha ka dhacay waa faldambiyeed bikulli maqaayis waa faldambiyeed booliskuna wuu ogyahay faldambiyeed tahay bulshadana waa u cadaynaya faldambiyeed tahay qofku xataa hadduu dareen uu qabo uu muujinayo dee si silmiya oo nabadgelyo ah ayaa lagu muujiyaa laakiin in wax la burburiyo oo intaa la geysto shareecada islaamka waxa aad iyo aad ugu adag baaritaankuna waxa la wixii halka ka dhacay baaritaanku waa inuu meel saara baaritaanka dawladda ay sameynaysaa waa inay meel saarta oo dee mushkiladda meesha ka dhacday dheemash way iskuulkii gaadhee dee nidaam iyo kala dambeyn iyo maamul iyo dawlad ayaynu nahay waa in cid la saaro oo si dhaba aan la odhan gudiyadunba aanay gudiyadaasi raaginaysa ugu dhaqsiyaha badan waa in la yidhaahdo mas-uuliyadda halkaa ka dhacday mas-uuliyadda ciddaasaa lahoo qaadaysa ciddii meesha qaadaana dheemashka meesha ka dhacay iyada xambaari doonta. arrinkan in shacbi ahaan dawlad ahaan guud ahaan dalku waa nabar weeyaan waddanka ku dhacay weeyaan oo boog ah boogta halkeeda in lagu daweeyo oo baxiidada loo siibo oo wixii waxaan geystay dee cuquubadii loogu talagalay iyo maaragtay tallaabo in laga qaado sharci ah marka hore in gunta la xaaro waxaan waxa ku dhaceen iyo sababtu waxaan keentay marka dambana ciddii waxaan ka dambeysay iyo ciddii fulisay in tallaabo laga qaado. warsame Siciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa. intaasi ayaanu ku soo gabagabaynaynaa warka TV-ga SBC oo idinkaga imanaya xarunta TV uu ku leeyahay magaalada Garowe. Ciise Maxamuud Ciise Talyaani oo aniga idin warramaya tan intaynu kulmi doono amaana Allah.